gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa maanta dhagax dhigay xarunta degmada Wadajir oo burburneed. Waxaa xarunta si wadajir ah u dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Wadajir. Xarunta degmada ayaa burburneed waxaana hadda qorshe u yahay in dib loo dayactiro xarunta degmada. gudoomiyaha degmada Wadajir ayaa sheegay in mar waliba bulshada ku dhaqan degmada Wadajir ay yihiin kuwa isgarab taagan. maanta runtii gudoomiye oo aan 7 bilood kadib oo aan joogno dhagax dhigga xarunta degmada anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Wadajir waxaan rabaa bulshada reer Wadajir inaan ugu mahad celiyo sida ay inooga garab istaageen ee ay inooga codsadeen inay degmadooda dhisaan sida ay u dhisteen laamiga quruxda badan oo ah laamigii ugu horeeyay ee gobolka Banaadir laga hirgeliyo dhisatana bulshada degmada Wadajir mudane gudoomiye ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshooyinka degmada Wadajir in ay ilaashadaan ammaankooda ayna soo sheegaan dhagarqabayaasha diinta dadka iyo dalka dhibaateynaya kuna ciyaaraya horumarka bulshada. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa ku bogaadiyay dadka degan degmada Wadajir sida ay u garab taagan yihiin maamulka gobolka Banaadir. ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Basmo gudoomiyaha degmada Wadajir ku-xigeenadiisa iyo dhammaan maamulka iyo shaqaalaha degmada Wadajir shacabka degmada Wadajir hooyooyinka dhalinyarada culimadiinka bahda saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa farxad weyn noo ah maamulka gobolka haddaan nahay inaan maanta ku joogno xafladdan oo runtii aan ku dhagax dhigayno degmadii Wadajir. xafladdu qiimo badan bay leedahay. waxaa kow in dib loo soo nooleeyo loo dhiso xaruntii adeegga bulshada ee degmada Wadajir oo iska lahaayeen shacabka. labo inaan tusno kooxaha argagixisada wax kastay naga dumiyaan shacabku inuusan ka daalaynin inuu dib u dhisto horena u socdo. gudoomiyaha degmada iyo maamulka waxaan aad uga mahad celinayaa sidii sharafta lahayd oo ugu gurmadeen dadkii waxyeeladu ku soo gaartay. waxaan marka hore u tacsiideynaynaa dhammaan intii waxyeeladu ku soo gaartay qaraxaas oo ujeeddadu ahayd in rajada shacabka laga baabi'iyo laakiin shacabka rajadiisa mid baaba'aysa maaha mid argagax iyo qarax ku baaba'aya midna maaha. annaga ka dawlad ahaan oo dawladda hoose iyo maamulka gobolkaba waxaan naga go'an adeegga inaan gaarsiino shacabka u dhoweyno. xaruntaana waa xarun u adeegaysa bulshada deegaanka. bulshadan waxaan rabnaa inay xaruntooda xajistaan ka wada shaqaystaan. waxaan rajaynaynaa inaan kulamo badan isugu imaan doono. waa salaamadii Fuad Mahmoud Maxamed Koonfur Galbeed TV magaalada Muqdisho.